Professor Ibrahim Maxamed Meecad oo ka mid ah aqoonyahanka reer Somaliland ee degan dalka Canada kana mid ahaa saraakiishii hormuudka ka ahayd halgankii dib u xoreynta Jamhuuriyadda Somaliland ayaa si adag uga hadlay ergeyga madaxweynaha Soomaaliya u magacaabay arrimaha badda cas iyo gacanka cadmeed oo aanay Soomaaliya gebi ahaanba maamulkeeda gacanta ku haynin kana mid ah dhulka Jamhuuriyadda Somaliland. Sidoo kale Professor Ibrahim Maxamed Meecad ayaa ka digay shirqoolla ay Somaliland u soo maleegayaan ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya, madaxweynaha dalka Djibouti iyo madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo oo aan isagu gacanta ku haynin amniga magaalada Muqdisho. Dhanka kale Professor Meecad ayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland ugu baaqay inuu la hadlo shacabka kuna dhawaaqo in la galay marxalad dagaal oo lagu soo qaaday madax-bannaanida Jamhuuriyadda Somaliland. isagoo arrimahaasi ka hadlayna wuxuu yidhi بسم الله والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد كلب كوبان oo baraarujin ama wax u sheeg nuxurkiisu yahay laakiin aadan u soo gaabinayo ayaan halkan ku qabatay cidda khuseysana waa dowladda fi darajati uulaa cidda kalena waa dadka innagoo kale ah ee waddanku wadanaynaya wax aan maanta maqlayay Farmaajo oo yidhi nin la yidhaha Yuusuf Garaad u magacaabay maxaan ku idhaahdaa nin wakiil isaga uga ah madaxtooyada uga ah badda cas iyo khaliij cadan iyo middle east iyo wamaada iyo wixii raaca waxaan uu ninkani horta kan la magacaabayaa waa Yuusuf Garaadna waynu naqaanaa taariikh madow buu leeyahay waa ninkii BBC-da wuxuu ka sameeyay aynu ogeyn BBC-da Soomaaliga ah dee Somali Protectorate baa lahayd waynu ognahay jabaabiirtii iyo libaaxyadii meesha kasoo warrami jiray dowladnimo ayaa lagaga sifeeyey markii dambena kan oo maxishooda ah ayaa kasii sifeeyey ina taa aamino weheliye wixii uu ku sameeyey oo weliba dhankooga reerahooga tahay iyo aduu xamartaasa wuxuu ina taa ku sameeyey quraan wax la qaata ahayd kaasaa kolla ay yidhaahdaan waa inoo yimaado kulle Djibouti shir ku qabto qaar inaguna kaas xaalkiisu waynu ognahay kanna waa generationkii labaad waa inankii inaafweyne tabti adeerkii buunu ku joogaa waxa ayaan daraa inay xamar ka caqbashay adeerkii oo Soomaali iyo dhegteedii iyo magaceedii burburiyey inuu inankiisina dariiqii adeerkii maro oo iyagana xukumo kuwaasaa ka aqbalay kana ka mida maanta la magacaabay almuhiim waxaan anu halkan uga jeedaa waxa weeye horta wax goor walba halkaa taalla tii ilaahay baa taalla wayamkuruuna wayamkurullaahu wallaahu khayrulmaakiriin taasi waxay tii markii Djibouti laynoogu tashaday ee xasan guuleedii afweyne halkaa ay inoogu tashadeen ee xayla maryana la yidhi Soomaali galbeed baanu ku saxeexno hadalka kama jiro kuwana noo soo xeree ee saddexdaas halkaa ay heer isla gaadheen tii ilaahay baa jirtay marka aayaddaas ah ayaa halkaa markaa munaasabadeeda ay timi tan imika saddex nin uu Farmaajo ku jiro labada nin ee imika mashquulka ah iyo isaga ayaa iyaguna meel madow maxaan ku idhahdaa makar ku sameeyey ilaahayna markaa u arkayaa kama qarsoona innaguna waynu arkaynaa laakiin waxaad moodaa eeg dadka la dhibo yaan labada wax iloobin waxaad moodaa kuwii ina dilay waxba ma iloobayaano weli way nagu sii wadaan kuweenii balaayadu gaadhay ayaad moodaa inay iloobayaanba oo waxaan loo diranaya maalayacni iyo dhexdooda kana bale ayaan darada eeg waa imaamyadii noogu weynaa waddanka waxa kolbaxaya waa intuu geed soo fadhiisto wuxuu doono ku odhanayo oon xishood jirin oon dadnimo jirin oo aan diin waxa muhiima markaanu pointkayga waxa weeye halkan ninkaa lagu magacaabay baddeenna waxa weeyaan our sovereignty waana territorial integritygeenna xamar intaasoo kunoo kilomitr bay u jirtaa khaliij cadan waa Somaliland weeyaan iyo intaa badda cas ku sheegaya kaa loo magacaabay in
beersoona inaanu xataa markuu hadduu sidii maxaan ku dhaha ayaantii dawlad meesha iska soo daadegay halkaa lagu xidhay oo kale inaan loo ogolaan jawaab horta waad bixisaa oo tidhaahdo caalamka waxay nimankan u sheegeen waa been territorial integrityga somaliland weeyaan gulf of Aden iyo Rirsiyu Indian Ocean weeyaan waxay nimankaasi dhex fadhiyaan wixii taa jawaabteedii ilaa imika ma hayno dowladda kama hayno waxaan markaa aanu ku baraarujinayaa ciddan ay khusayso oo dadkana ay khusayso laakiin federajista ilaa dowladda khusayso inay jawaab degdega ka bixiso maxaan ku dhahay adduunka u sheegto maaha in innaga dhexdiina ay noo sheegto innaku waynu ognahay adduunka ina u sheegto haddii ninkii wasiir khaariji uu maqan yahay ama xanuunsanayo ama duruufi jirto wasaaraddu waa laga buuxaa bortokoolaa jira websaadyaa jira dad baa jira adduunka in loo sheego weeye saddexda nina markaa ku heshiiyey baddaasaan kanaan xamarba aan shaqana ku lahayn aan xukumin haddana xukuma bal adeegada mana xukuma waanu xukuma mar haddii uu de isagii dadkii meesha lahaa uu intu kala qaybiyada lacagna ku isticmaalayo dee dhinaca wuu ka xukumaa dhinaca kalena waa reegar baaride almuhiim bointka waxa weeyaan baddaadii baa nin loo magacaabay ka jawaabteeda munaasiba always yaynaan noqonin reactive waa inaan arrintaa si degdegna looga jawaaba arrimaha kalena lala socdaa shaashadda adduunyada iyo especially mandiqadan sida degdega isku bedelaysa waa in saa loola socdaa aayadda qur-aanka waxaanu soo qaatay Djibouti wixii ay gaadho waa taadaweyd ti ilaahay baa markaa yaa ka sarraysay oo shaqaysay waa kii labadii oday midna garbahaar u baxsaday akhirtiina Nigeria isku dilay kii kalena sidiisa u dhintay saddexdan nin imika badaha Soomaalida bixinayeen inaguna ku jiro xaaladoodu waa laba mashquulka kanna isna waa saas oo kale laakiin propagandkii baad moodaa in aad iyo aad ay nooga badinayaan taas waxaan ku toosinayaa inaan arrintaa la dhib yaraysan sideeda loo qaato Yuusuf Garaad wuxuu yahay ummadda loo sheego Farmaajo wuxuu yahay ummadda loo sheego laba cudur oo ismagacaabay inay yihiin la sheego madaxweynuhu ummadda ha u khudbadeeyo hadal uun maaha ha u sheegay inaanu ku jiro state of war ama cold war ha noqdo ama hot statekaasaan ku jiraa wixii dhulkeenna iyo badaheena soo farageliyena sidaa ay u dhigeenba waan difaacaynaa markaa laba arrimood weeyaan in ummadda loo diyaargareeyo inay xaalkeenu meel adag joogo labadaa nina mashquulka yihina ilaahay mashquulka ha ku dheereeyo kana dhowaan buu mashquul noqona intaa iyaynan isdhiganin marka laba action unbaa la qaadayaa mid waa ka dabatag maaha waa ka hortag duwal almuxiit cala albaxar waxaan ku wareejisan carab bay u badan yihiin in halkaa laga campaign gareeyo in waraaqa la dhigo AU-da United Nationska everywhere ta kale muhiimka waxa weeye wax waliba gudaha iyo ka bilaabmaa dadkaaga unite garee ummadaada haddayna united ahayn meesha eg forceka qura ee loo jeedaa ee meeshana xoreeyey waa la ogyahay kuwaasi hadday kala biliqsan yihiin way kugu adkaanaysaa ummadda isku keen tan kale ee actionka un ku jirta waa gudaha wasaaradda daakhiliya meel ay joogto ma garanayno waddanka nadiifi oo koonfurta kugu hoos jirta iyo oromada ka nadiifi waayo cushka iyo xashiishka iyo meelaha masaska iyo abeesooyinka iyo bijire wax oo dhan baa kusoo dhuunta waa lagugu soo dhuumani waayo state of war horta waa exactly aad macnaysa xaaladaada kolba inu meel aad ka daba tagta maaha waa in waddanka gudihiisa la nadiifiyaa wasaaradda daakhiliya waa in securityga xooga u adkaysaa waa in ummadda xaaladda ku jirta loo sheegaa waa in wixii logistics ee waxaa maxaan ku idhaahdaa caawinaya na lagu dhaqaaqaa waa in xisaabta
iyo dowladdu ay cod qura ku wada hadlaan. Faysal wuu hadlaa intuu hadli karo, maxaan ku idhaahdaa wadaadkan kale allahu aclam xaalkiisa ma garanayno, isaguna wuu hadlay haddii loo yeedho. marka hadalkun maahayo dowladdu markaa inay define garayso xaaladda ay Somaliland maanta ku jirto waa state of war. dagaalkii lagu xasuuqay Siyaad Barre ku xasuuqay continuation kiiso nooc kala unbaa socda oo inankiisa maanta maxaan ku idhahdaa xamar ka wada. marka labada front in laga dagaalamo ta gudaha iyo ka dabadaba taasaa muhiima, dadkana loo sheego xaaladooda ay ku jiraan, sidaa la isku diyaar gareeyo. anu intaas baan ku beerinaya, waxaan malaynaa waxaan ka tegey inta hore ma jirto. idinkana waxba idama farayo. asalaamu calaykum.